Bismillahirrahmanirrahiim. Waa barnaamijkii la magac baxay ku baro kombiyuutarka afkaaga hooyo. Waxaan maanta qaadanaynaa cashar ku saabsan sida wax loo printer gareeyo. Waxaan tegaynaa file, waxaan leenahay kadibna printer. Printer option baa la yiraahdaa intaan ku muuqata. Laga bilaabo printer ilaa iyo meesha printer setup-ka oo aan dib ka qaadan doono haddii la haydmo. iyo halkan ku muuqato qoraalka ka muuqdo oo preview ah. Hadda waa hal page haddii badan yihiin halkan waxaa ku arkaysaa next baa leedahay page baa u arki kartaa intaadan waxba daawacan. Halkan waxaa ka dooranaysaa printer ay ku taalo printer name-ka. Qanaxdaas soo furaysaa. Kombiyuutar kasta oo xafiis yaala waxaa la yaala printer. Printerkaas wuxuu leeyahay magac u gaar ah sida LaserJet 300 LaserJet hebel HP waa badan yihiin Canon. Marka hadda kii marka adiga ku yaala oo xafiiskaaga yaala ayaad ka dooranaysaa. Kadib markaad ka doorato position-kan haddana waxaad sameynaysaa oo ku xiga intee page baad rabtaa inaad ka koobiyeysid. Halkan waa meesha wax laga koobiyeysto, waxaa laga kartaa 3 4 5 6 waa ku qori kartaa waa ka 7 page 6 page hadda inta rabtid baa ka dhigi kartaa. Haddaan hoos setting-ka markaan tagno waxaa arkaysaa wax la yiraahdo number. Halkan waxa la yiraahdaa settings. Setting-kan waxaa loogu talagalay mararka qaarkood waxaa dhacda report baa daabacday. Report-kaas wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo 10 page. Waxaa laga yaabaa pages ka mid ah inay ka khaldan yihiin oo aad dib u saxdo oo rabto inaad dib u soo daabacdid. Ma 10kii page baad dib u daabacaysaa waa maya. waa inaad samaystaa markaas wax si selection waa inaad samaysaa. For example page-ka shanaad baa ka khaldamay dash baa leedahay, page-ka lixaad baa ka khaldamay sagaalaad, page-ka sideedaad. saddexda page ba marka si gaar ah u daabacanaysaa aad wax maaragtay oo kaaga khaldameen oo aad dib u saxday. Then waxa ku xiga waxa la yiraahdo printer one sides oo micnaheedu yahay warqadda tan markaan ku daabacay mahal dhinac baan wax kaaga daabacaa. Haddaad rabtid marka hal dhinac inuu wax uga daabaco sidaan aad dooranaysaa. Haddii aad doonayso marka warqadda inaad labada dhinacba wax uga daabacdid halkaan furaysaa waxaa leedahay both pages labada dhinacba kaga dhufo, labada dhinacba qoraalka kaga samee. Halkan waxaa ku xiga wax la yiraahdo partial annotation way ka duwan tahay oo micnaheedu waxa weeye warqadan aan ku daabacaya ma warqad waxa u rabtaa dherer ah mise waxaad u rabtaa warqad balac tee doonaysaa inaad daabacato. hadba kii marka aad doonayso inaad daabacato oo aad daabacadaada ka dhiganayso iyadana waa xulan kartaa waa choice-kaaga. waxa ku xiga wax la yiraahdo margin markaad tagto isaga margin-ku waa normal-kaas badanaa la isticmaalaa. narrow-gan waa marka warqadda ka gees aad wada furaysid margin-kaaga. dib baan ka qaadan doonaayo idin faahfaahin doonaa. haddii ilaahay idmo waxaan guda geli doonaa wax la yiraahdo insert baan waxaan ku ogaan doonaa wax la yiraahdo margins-ka. halka marka sii socotid waxaad arkaysaa wax la yiraahdo pages per sheets. micnaheedu waxa weeye halkii page intee page baan kugu daabacaa. For example page 1 iyo page 2 hal warqad igu daabac ama afarta page ugu horeysaba hal warqad igu daabac. waa choice-ka adigoo ay yeelan karto. dhammaan marka casharkii aan ugu talagalay printer-ka inaad ku barataan intaan ku kooban yahay. aad ayaan idin amaanayaa dhalinyarada ku xiran barnaamijkan oo sida tooska ah ula socota ku sugan daafaha caalamka sida Mareykanka, Pakistan, Oman, Jordan, Soomaaliya iyo meelo kale oo Afrika ka ah oo badan. Qatar sidoo kale. aad baan idinku hambalyeynaya qof walba waxa weeye meeshiisaan kala socdaa. subscribe-ta ka hilmaamina si aad ula socotaan casharada xiga casharadan. wax ku oolka insha Allah waan danaynayaa inaad ka faa'iideysataan. Thank you very much. idinkoo subscribe gareynaya haddana comment ka soo bixiya like-tana ka hilmaamina. aad baa ugu mahadsantihiin. soo dhawaada. Thank you very much.